munaasabad ballaaran oo kulmisay bulshada haldoorkeeda ayaa xalay waxay ka dhacday Hotel Green Palace ee magaalada Hargeysa taasoo lagu soo bandhigayay buug laga qoray Allah u naxariistay aabihii farta Soomaaliga Muuse Galaal Cali taasoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sarreeya asxaabta siyaasadda wasiirro ka socda xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiir dawlayaal ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay abwaano qoraayo taariikhyahanno iyagoo dhammaantoodba ku dheeraaday taariikhdii uu lahaa Allah u naxariistay Muuse Galaal Cali sidoo kale waxaa isna halkaasi ka sheekeeyay taariikhda buugga qoraaga buugga Maxamuud Xaaji Ibraahim waa dhageysatay barnaamijyadii faraha badnaa ee uu duubay dadkii murtida lahaa uu ka duubay waxaan ku celinayaa halganka uu soo maray ummadda tan hantida ay leedahay haday dhaqan tahay haday gabay tahay haday kaydin tahay haday xiddigis tahay haday wixii ay ummadda tani lahayd ee ka dhaxeeyay halganka uu soo maray murtida uu ka tiriyay ayuun baan in yar iyo wax codkiisi u eg aan yara canjiro waxaan u malaynayaa inaynan muuse aanan matali karin laakiin waa canjilay gabayga waxa keenay عمر دير عمر ولا قرنيا ونين خلق كان لحدنكي لغا شرحي ونين اقويها ونين معلنها عمر باوح ويدي عمر وحيي موصو قاتل سكتا شاك ويوي هذا شاك سكتا يسود هذا انا سكتا يني واضمان يسا يا هذا دمتانا امدتان كما ما توجي umada tani lahayd waa la dhimanaysa marka Umar uu la hadlayo wuxuu leeyahay Umar waa intuu jaado kaliya ma hayo wuxuu soo marayna dadka shucuurtiisa iyo dareenkiisa hoosana waa cabiray Umar naftayda dayacan bifta waa xuyalay shirkayga daroorta oo ekataha waxa saaray waxay doorshay wama sadan dooristeedka waxaan filayaa rag badan oo muuse iiga aqoon badan iyo halka jooga caawa oo la soo shaqeeyey la soo saaxiibay laakiin anigu qadar yar anigoo aan hadalka ku raagaynin iyaan ka odhanay habeen hore Siciid Saalax baa wuxuu yidhi muuse aniga oo aan arag baan bartay وريو هكيس ما كبر وقرآن كيسان كبر أنا بعد تامي كنارك الله منا موسى عليه هو يان قوان ولي كراتسن يان كتبي وانجليز كتوغوري لكن وحنا كبر سي عشان كيسي شيكوي كيسي سوغان كيسي murtidiisi tuu isagu alifi jiray iyo tuu dadka ka ururin jirayba halka buugga oo aan dhawaan bilaabnay oo 1906 aan Maxamed ku kulannay Finland oo markaa uu ku hayay niyadda waqti dheer baynu ku qaadanay kadibna waan isla soconnay لكن هو بوليسكيس يدرجين كيس يهوش كيسة إلهي هكذا سايم هي محمود بحكي على سجارة ما عيسى سجارة أنا هو أنت بتحكي أيوه وأكون قايلين عليه مركان وفوقك لو أنا راح أكون مرة يا بقولها أنت أصلا مسؤول مركز ما دار يسوارون وأنا يو لا يزالك هذا أي محمد عشور يدك لا شقيسة وحأنه بسوقي حوجي وصوت هو هاي موسى معلم فصل كبديجيسو كعليل يهي وانت كوكد بيه من فصل أفر دربيه فالكوكد بين بوها فقاراء او فرديو بنانك او جوغو مخالد او جوغو مرمالبا وحا او كشيكين يعلوم تابا شاقي ايام مربا ملكي وحلقوا يدي اما قصوا دعسدو ورمتري ومدوين دل فدي جري وقت مالنتا وحان أركي ودريم جري وحوالي وشيكدا يقدمينتا وكداف جري حلقة صلاة سوق شمون سوق جندالي
oo yidhaah waa salaadii laakiinse inuu cunada ku seego hawl kale ku seego waxa uu gudbinayo oo uu odhanayo ayaan kaga qayb qaatay. runtii aad baan u shucsanahay waayo marxuumka laga hadlayo allah yarxamo مرحوم جامع موسى إسماعيل قلال موسى إسماعيل قلال وحان بريو هيستي إلى آل إسماعيل ولا لكنين سيدا أي سكولو وهين سيدا أي ساقيل وهين waxaanu allah yarxamo marxuumku oran jiray ale marka inuu hadda xaafadayada yahababan in badan u haystay laakiin imkana igama fogaan qofkaan ixtiraam weyn iyo kalgacayl weyn u hayo ayuu ahaa marxuumku waxaan ixtiraamkaa u hayaa horta af soomaaligeena sharaf uu yeelay baan horta ixtiraamka ugu haya wuxuu ahaa qof dhaqankeena jecel wuxuu ahaa qof suudaanta jecel waxaanu ahaa qof ku darsaday cilmiga madaniga ah aqoon badan iyo cilmi badan oo laga yaabo dhalinyaradu inay odhan lahayd waa wixii reer miyiga maxaa ka mid ah xiddigaha astrology waxaa caruurtaydu soo dhacay isbedda labeerakaya anaguna waxa soo dhacay muuse galaal muu ahayn gabaya 6 sannadood iyo 6 bilood markii laga degaan telefishinka israaca soomaaliga kaga jiray sida loo ictiraafdaa muuse galaal waa ninkay baray aniga agoona nin wada halka fadhiyana waa ninka baray inuu af soomaaligiisa ku hadlo ummaddu maanta waxba bay barateen waxay qayb lahayd in cilmi dhigoodkii miyiga shaksiga sameeyey inuu inan oo Soomaaliya iyo inan waloo Soomaaliya ay qorto kelmadda ay ku hadlayso dhaqankeedana iska reebtay waa hadlaysaa muuse galaal uma baahna maanta buug la qoro muuse galaal maanta uma baahna hebel waa nagaan muuse galaal wuxuu baahan yahay ictiraaf inuu noqdo aabihii afka Soomaaliya رحمه الله إبن بقولك كوي هو صمالي كنت لاعب كنا معرتي كلام بسرعة كنت جا بواشرة لو يها بوانو لو بس بوانو بوش هذا كيسكاي تلك كيس كيسيو كلامنا على أفضل وسلام قال عبد الكريم حاجي شبكة عالمية هلال نيوز هوتيل جرين بلاسا مقالة هرقيسة